shirkadda xawilaadda iyo bangiga Amal oo kamid ah shirkadaha ugu waaweyn ee ka howlgala Soomaaliya ayaa adeegyo kala duwan oo ay ku qancinayaan macaamiishooda waayadii u dambeeyay ku soo kordhinayay adeegyadooda waxaana munaasabad ka dhacday hotel Kismaayo oo kamid ah hoteelada ku yaala magaalada Kismaayo ay shirkadda Amal ku soo bandhigtay adeeg cusub oo ay ugu magac dartay Xudun Xir ayaa ah adeeg ay soo kordhisay Amal Bank oo ay ugu talagashay in waalidiinta ay ilmahooda ugu keydiyaan lacago marka ay dhashaan. Haddaba dhaqanka Soomaaliyeed ee soo jireenka ah iyo sidoo kale adeegan ay soo kordhisay shirkadda Amal Bank ee ah Xudun Xir maxay iska waafaqayaan dhaqanka Soomaaliyeed. Haddaba waa kan Sheekh Xamdi Cabdi Xasan oo ka hadlaya adeega Xudun Xir iyo dhaqanka Soomaalida sida ay isugu dhow yihiin. Bangiga Amal Soomaatinkan sharafta leh nagu kulmiyay ayaan mahad gaar ah u celinaynaa. Waxa galabta meeshan lagu soo bandhigayo waa wax asal Soomaalidu ay u lahayd shareecadana ku bannaan. Soomaalidu waxay asal u lahayd ilmuhu marka uu dhasho in loogu xudun xidho neef waliba neef dhadiga. Bangiga Amal wuxuu naga soo raray baadiyihii waxa uu na keenay magaalo. Ilmaha waxaa loogu xudun xidhi karaa digaag, waxaa loogu xudun xidhi karaa guri cariisha, waxaa loogu xudun xidhi karaa qol dukaana, waxaa loogu xudun xidhi karaa hantida qofku uu magaalada ku haysto qayb ka mid ah. Waa mas'ala bannaan. Wixii marka ka soo baxa in bangiga loo dhigo oo loo tarmiyo ayay soo kordhiyeen qoladan reer Amal. Madaxa isku xiraha guud ee Amal Bank Cabdifataax Xajab ayaa bulshadii ka soo qayb gashay munaasabadda waxa uu faahfaahin buuxa ka siiyay adeegan cusub iyo faa'iidooyinka uu bulshada u hayo isagoona intaa ku daray adeegyada akoonnada ahi ee shirkadda Amal uu yahay mid lacag la'aan ahi. Horumarka qoyska baan waxaanu ku saleynay inaan hoos ka soo bilowno horumarkii in ilmihii yaraa akoon loo furo. wadamada reer galbeedka qofkii tagay oo wax jira adduunka dhan uu ka jira in ilmaha akoon loo sameeyo. Wandal yaraaba hadda hoolkan isku aragna wuxuu yiri Soomaalida miya ka dhaadhicinaysa in caruur akeed u sameeyaan adiga macquul ma aha waxaan ka hadlaysid. Tawiilkaas yarka hadda wuxuuna ka aaminsan yahay inayna caruurtan wax u quurin oo ka u sameyn karin. Markaas waxaan ku yiri war dhaqan baa jira Xudun Xiro ilmuhu markuu dhasho reerbaadiyuhu ama qaalin ama ceesaan ama sabeen ama nayl ama neef baa lagu magacaabi jiray markuu dhasho. neefkaasi marka barbilow hanti ayuu u noqon jiray. Marka hadaan reer magaalnahay waxaan filayaa inaysan dadka baadiyaha deganayna ka deeqsanayso saas ma hadaa maanta bangiga Amal kun akoon ka furata ma bilaash yani akoon wax lacag laga ma rabo يعني هذا أوتكتو وحبل لقى مرة فرشدي وبلاش دقة الشدو وبلاش قاضي الشدو وبلاش الله لو حلقة مرة مجرته وحبل الكلية ما أولي كرتا أنت تكتو إن أكون فرته وأنت بس حتى أحد دي بيز وطعي لأن يرون ديار بقوية إنك وي ما هذا حرون هذا وفون كاسو بوحينا صور كاسو أكون كوفران ويسوى فران كو كانان. qaar ka mid ah waalidiintii ka soo qayb galay munaasabadan ayaa bogaadiyay shirkadda Amal Bank oo ay sheegeen inay waayadii u dambeeyay faa'iidooyin badan ay ku qabeen bulshada Soomaaliyeed. Bayda Xasan Cabdi waxa ay ka mid tahay ardayda dhameysay jaamacadda Kismaayo waxa ay ka warbixinaysaa faa'iidooyinka uu bulshada u leeyahay adeegan. hadda anigu waxaan soo joogay cunug yar oo dugsiga sare intuu dhameeyay xaqiiqatan uu xisaabtamay markaas intuu aabihiis u tago dhahay aabe laba mid ama si iyo guuri aan shaqaysto oo reersis ku yeeshay ama si jaamacad Soomaaliya kuma qanacsanay dibadda wiiga aabihi ma awoodo cunuga muxuu ku qasbanaanayaa inuu tahriib aado inuu si kale u fakaro inuu nolosha ka dhaco maybe cunuga inuusan wax barashada uu si jeclaan uu rabo business inuu sameeyo waayo dadka hal dhinac
looma abuurin marka waxaan leeyahay bulshooy amal bank horumarkii inay ka qayb qaadanaysaa garab istaaga ugu dambeyntii maamulka shirkadda Amal Bank ayaa u mahadceliyay dhammaan mas'uuliyiintii ka soo qayb galay munaasabadan gaar ahaan madaxa qaybta Amal Bank ee Kismaayo Maxamed Daahir Cabdullaahi iyo sidoo kale Cabdullaahi Cabdislaan oo ah maamulaha Amal Bank ee Kismaayo marka Amal Bank waxay idinaysaa horumarkii waxay ka shaqaynaysaa qofkii oo waxay uga shaqaynaysaa inay qofkii account u samayso maalgelinna samayso oo siiso oo waafaqsan shariicada islaamka qoyskii bay u haysaa horumarintiisii oo aan ka shaqaynaynaa barnaamijkan maanta aan develop garaynayno oo ka mid yahay iyo accountna kale oo badan bulshadii bay horumarintiidii ka shaqaynaysaa haddaan nahay annagu reer Amal Bank waxaan idin keennay adeegyo tiro badan maanta waxa u dambeeyo adeegan xudun xir waa dhaqankii ka jiray miyiga oo magaalada keenay adeeg baan keenay adeegan xudun xir ka faa'iideysta hadda tii reer Kismaayo Amar Yaasiin Umar Jubaland TV Kismaayo qaybaha kala duwan oo bulshada